shirjiraadii masjidka Ar-Raxme magaalada Burco ay si wada jir ah ugu qabteen culimada waaweyn ee gobolka Togdheer ayaa ka hadlay kaniisad laga hirgeliyay magaalada Hargeysa waxaana culimada ay sidoo kale xukuumadda Soomaaliland ay ku amaaneen go'aanka ka qaadatay sidii gabi ahaan albaabada loogu laabi lahaa kaniisadaasi waxaana kamid ah culimadani baaqa soo saaray Sheekh Mustafa Aadan Suldaan Sheekh Yuusuf Cabdi Cawad Sheekh Cabdi Qani iyo culimada kale waxaana culimada oo armahaasi ka hadlay hadaladoodii kamid ah sida tan maxay ka qabtaa shariicada islaamku in beled ama dal islaam ah oo bulshada ku dhaqan ay tahay bulsho islaam ah in laga dhiso kaniisad ama macaabid iyo meelaha ay ku cibaadaystaan dadka aan muslimiinta ahayn arintaas maxaa uu sharciga islaamka qabaa dabcan iyadoo culimada iga dambaysa insha Allah taala ay iftiimin doonto mawduuca iyo sababta loo caqiday waxaa muuqatay inkastoo si aad iyo aad u qurux badan ay ku dhamaatay ilaahayna tabaaraka wa tacaala aan ka rajaynayno in sidaas hawsheedu inagu dhaafto haddana waqti dhoweyd ama maalmo ka hor arrintan markii ay soo baxday waxaa muuqatay in badan oo bulshada ka mid ah in aanay arrintaas xukmiga sharciga ay ku leedahay aanay ka warqabin ama ha ahaato qoraahaha layska weydaarsanayo iyo qoraalada laysaga gudbinayo meelaha ay dadku ku xidhiidhaan ama baraha bulshada ee ay dadku ku xidhiidhaan ama ha ahaato ra'yal caamka guud qoraahda ka soo baxaysa waxaa muuqatay in badan oo bulshada ka mid ahi arrintaas ay kaga sugan tahay aqoon la'aan kadibna waxaa waajib sharciya noqotay iyaduna maadaama arrintu ay saa tahay in ay culimmadu mas'alada xukmigeeda iyo miisaanka ay sharciga ku leedahay ay caddeeyaan arrintan iyada ahi oo ah binaa'u lkanaa'is fi lbilaad alislaamiya in laga dhiso kaniisad ama kaniisado ama wax la mid ah beled dad muslimiin ay ku dhaqan yihiin arrintaasi ma aha arrimaha cusub hadda waxaa la yaqaanaa arrimaha waxna waa nawaasil oo waa waxaan hore u dhici jirin oo laga yaabo culimmadii hore inaanay bidaat iyo gaar ahaanteeda aanay u carab dhebin qaarna waxa weeye masaa'il sharciga meel ku leh oo meel lagu tiiriyey oo laga soo bilaabo saxaabadii rasuulka sala allahu calayhi wasalam waqtigii rasuulka iyo culimmadii intii ka dambaysay intaba culimmadu ay ka hadlayeen marka masaladana waxay ka mid tahay masalada ama masaa'isha ay inagaga filaadeen culimmadeennii hore laga soo bilaabo saxaabadii nebiga calayhi salaatu wasalaam hadday tahay taabiciintii hadday tahay a'immadii ka dambaysay hadday tahay kuwii kale ka sii dambeeyey hadday tahay almadaahib alarbaca wagayruhum min alculamaa waa mas'alo markaa ay meel xukunkeeda ku tiiriyeen waa mas'alo leh adilo sharci ah oo qur-aanka kariimka ah iyo sunnaha nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo ijmaaca muslimiintaba daliil looga heli karo maadaama masaladu ay saas tahay oo aanay ahayn masale ijtihaadiya oo hadda la doonayo culimmadu inay ka tala bixiyaan waxaa muhiim ah in markaa aynu taataabanno insha allahu tacaala inagoo soo koobkoobi doona culimmadu waxay ka yidhaahdeen ama adilada sharciga ah ee masalada ku soo aroortay in ugu horeyn
إلهي تبارك وتعالى سيدا كوعد آيات القرآن كاه ندوذ شعارك اللو قدقي إن الدين عند الله الإسلام إلهي تبارك وتعالى وحو كرالي نقضي أو الدينهان رالي نقضي ومدى بشرية دمان تدبا قال كذا يا مسلم كذا با وحا أي كدين ديغانيان أي كدق بيان أي راعيان إنه تهي نقطة دين إسلامك وحا إلهي سعود شيء تبارك وتعالى كتاب مهيمن ودمان كتبتي كهريسي نصحي وأي واجب تهي دمان إنسيغا يجنيغا انتوما إنه إساغا قاتان وأي كدقبان وكأمر قاتان وحكالي وكسته وكصوهرين أي هالكاس كغهران وح إلهي تبارك وتعالى وصادري رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وبشرية دمانتين إلهي وصادري وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا هي آيات ككلي لمد مركز ساستهي وحا إلهي تبارك وتعالى ورهابي وقطعا سقعا ومقطوعا وإلهي تبارك وتعالى ورهابي دين كسته وكسو هدي دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم هدي أي تهي دقن كيدا يا هدي أي تهي شعائر تيدا يا هدي أي تهي إن إلهي لوغ الدين يشاء انتبه وحا ممنوعة وحكسته ودين تناس أما دين شامل كأه إلهي تبارك وتعالى وإنه قلضي وحكسته أو كهر إيمانيا وممنوع شرعا وعقلا هل كود أيكم يبيه وحا إلهي تبارك وتعالى نبي سأكسود شيء قرآن وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وحيثك الميستان الله كعبسك يوناك وحانا كريبنتين إنا إسك الميستان دنبك يا علاند يا حد قدبك وحان سودوان يا كو إن وما هذا لأنه حكومة الصومالي الآن طلابة أي قاطي سينمada anigoo de ku hadlaya afkii dhaqanka waa ku hadlaya salaadiinta waara u jooga afkii salaadiinta ana ku hadlaya afkii culimadana waa ku hadlaya xukuumadda Soomaaliland talaabada ay qaaday oo ay ahayd inay hore u qaado jifku waa iska dhici karaa bashar baynu nahay shacab wa xukuuma farda wa jamaa qofna waa ka dhici karaa jamaa kooxna waa ka dhici karaa xukuumaddu ka dhici karaa shacabku ka dhici karaa laakiin khata iyo gefka waa in la qabto weeyaan qodobka labaad waxa weeye waxa soo jeedinaya aanu soo jeedinaynaa ilaahay wuxuu subhanahu wa ta'ala wa atii'u allaha wa atii'u ar-rasula wa ulil amri minkum ilaahay atii'a rasuulkiisana atii'a kuwa yaani umarada idiin ahna madaxda idiin ahna atii'a umarada culimadu markay fasirayaan waxay ku fasireen al-ulama wal umara wa culimada oo arrimihii masaa'ilkii diinta la weydiinayo dadkii diintii waxa weeye ilaalinaya iyo umaradii iyo madaxdii oo arrimihii siyaasadda maaragtay u taagan marka yaani umarada iyo culimadu ama madaxda iyo culimadu hadaanay wada socon oo isku xidhnayn oo waxyaabaha masaa'ilka waxa weeyaan aan laga wada tashan qalad baa imanaya marka waxaan soo jeedinaynaa xukuumaddu arrimaha noocaas oo kala ah inay maaragtay dalka waa la ogyahay culimo waaweyn baa joogta waxa laga hay'adii culimada la sameeyay yaani waxa weeyaan maaragtay
waxyaabaha noocaas oo kala ah marka lagu dhaqaaqayo culimada in laga tashado oo hadhowto aan la gabgableynine yani waxa weeyaan inta aan lagu dhaqaaqin yani culimada laga tashado mowqifka shariicada islaamku ay ka qabto arintan haddii maalintii hore culimada masalada wax laga weydiin lahaa culimadu sidaa imika ay u cadaysay ayay u cadayn lahayd sidaa imika ay u cadaysay ayay ugu cadayn lahayd yani marka xukuumadda qaladkaasina halkaasaa lagu qaban lahaa marka waa in culimada lagala tashadaa oo dawladdu kala tashataa arrimaha noocaas oo kale ah waxa weeyaan maaragtay loo baahan yahay in go'aan shareeco laga qaato waa in culimada lagala tashadaa ta kale sidaa uu sheekhu sheegay sheekh mustafe dadku mid waa ku mahadsan yahay shacabku oo way baraarugeen oo way qayliyeen oo shacabka ayaabaad moodaysay inay culimada ka qaylo badnaayeen oo lahaayeen war maya culimadii war sawtan dalkii loo soo dhigtay war sawtan kaniisada laga dhisay war sawtan maaragtay laakiin qaar kale oo qabasha oo ama la soo dirsaday ama aan waxba fahansanayn ayaa sidaa sheekhu sheegaya waxa weeyaan maaragtay maxaa ka macno ah beriyaha waxaa iska badan maxaa ka macno ah markaa maxaa ka macno ah hadday diintana kaa gasho diintaada hadday gasho maxaa ka macno ah yani waxa weeyaan waxaad noqonaysaa waxaan waxba ka dawa ahayn oo diintiisuna maxaa ka macno ay tahay waxaan kale oo tilmaami lahaa dalka dawlad iyo shacabba inaynu ilaashanno oo waardiye laga hayo culimada haddaynu nahay shacabka haddaynu nahay dawladda haddaynu nahay waa waajib ina wada saaran haba inoo sii kala weynaado waxaan soo jeedinaynaa oo weliba xukuumadda u soo jeedinaynaa war dadka shisheeyaa ah ee dalka imanaya bal waxa ay wadaan waxa ay wadaan ee dalka ka qabanayaan in loo dhug yeesho waa lagama maarmaan diin baa la faafinayaa haddii la dooro waxa weeyaan waxyaabo kalea la faafinayaa dalkeenna waa la iman karaa gaalada heshiis waa lala geli karaa laa yanhaakum allaahu can aladiina lam yuqaatiluukum fi اddiin walam yukhrijuukum min diyaarikum an tabaruuhum watuqsiduu ilayhim laakiin waxaa weeye heshiisyo nabadgelyaa lala geli karaa heshiisyo ganacsi baa lala geli karaa magangeliyaa la siin karaa laakiin waa inay xuduud lahaataa gaalkan waxa uu dalka ka qabanayo waa in markaa waxa weeyaan gaalada diyaaradaha soo raacaya ee labada kartoon ka soo dejinaya dawada ah gaaladaasi dalka waxa ay ka qabanayaan waxa weeyaan in loo dhug yeesho waxa dadka dhagahooda ku jira oo in badani ku doodaysaa inaba masaajidda waxaynu ka dhisnaa dhulka gaalada maxaa iyaga loogu diidayaa inay dhulkeenna ay masaajid ay kiniisada ku yeeshaan waa arrin runtii dadka wixii aan aqoon garaadkoodu fiicnayn ama aan aqoon diinta u lahayn shubha la gelin karo weeye waana shubha khatara runtii laakiin waxaa meesha taallaa xaq iyo baadil la isagama qiyaas qaato diinteennu waa diin xaqa ilaahay wuxuu ku nasakhay adyaantii kale oo dhan ina diina cinda allahi alislaam waxaa maqasheen nidaamka la yidhaahdo cawlamada alcawlama in caalamkan dunidan ay ku nool lahay laga dhigo hal shay gaalada halkaas higsanaysaa wakhtiga loogu talagalay inay cawlamadu hirgasho oo dadku ay isku si u fekeraan oo hadday doonaan isku diin ay u hiiliyaan oo isku si wax u cunaan oo isku si u labistaan oo nidaamkaas hirgalo 2030kay u qabteen meelo badanna way kaga hadleen caalamku siduu u ekaanayo 2030ka caalamku si u ekaanayo 2030
caalam isku aragti ah oo isku muuqaala oo isku labisa oo aan afkaar badan ku kala duwanayn oo wax wada cuna oo isku si u nool oo macnaha waxa weeyaan aan saska qabin diimaha iyo kala duwanaantooda baa la rabaa 32 maxaa bay inaga xiga wada taagan yahay berigi wada nala fogay dijidii meesha koowaad ee loo soo maraya barnaamijkaas waa barnaamijkan technology-ga aan iminka sheegayno oo saa wax u dhex socdaan laba shay baa dhex socda labadaas shay waxa weeyaan akhlaaq xumo iyo shakisiin diinta xaqa ah in diimaha la iskaga daro dadka laga walaaqo oo afkaarahooda iyo adduunkooda iyo aakhiradooda diintooda iyo waxoodan la isku walaaqo qofku qof yar mansuukha oo wax muqaddasaada rumaysnayn oo aanay wax badan u kala sooconayn oo shubha marka lagu soo roriyo isku yaacaya qof miskiin ah oo noocaasa baa la rabaa in laga soo saaro macnaha waxa weeyaan halka aan leeyahay macnaha waa tiknoolajiyada isticmaalkeeda wax weyn baa ku soo jira ragga isticmaalaan way u warhayaanoo iminka afkaarta ka socota ee diin la'aanta ee awal inaga xijaabnayd ee lama yimi iskaga noolayne ee hadda Soomaalidu ay aad iyo aad u qaadanayso ومحمد إبراهيم بريتش شبكة عالمية هاروناغ نيوز برعو